السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal ku soo dhawaada janalkeena meel kastoo dunida ka joogtiin. insha allahu tacaala caawa waxaan bilaabi doonaa alifkii ayaa lagu soo celinayaa hadduu ilaahay yiraahdo. dariiqada carabiga ayaa insha allahu tacaala intaan ka gaaro ayaan samayn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo, oo adikana yacni aada jeclaatiin markaas in lasii wado. marka insha allahu tacaala aan ku bilaawno. nabda aada iyo aadaan dhammaantiin idiin salaamaya meel kastoo dunida ka joogtiin. bismillaah. walaalayaal halkaan alifka markaad yacni caruurta ah ina bartiin rabtiin, walaalayaal waa ina first xarfaha isku eg aada cunuga fahansiisiin. bilmathalan bacda iyo ta'da iyo tha'da dhigaalka way iskaga egyihiin, yacni qoraalka way iskaga egyihiin, laakiin dhawaaqay ku kala bedelan yihiin. marka cunugii markaad dhibcaha aad kala tusisid oo yacni say ku kala bedelan aad tusisid, cunuga maasha allah way faastar ku baranayaa. marka jiim iyo xa iyo kho maxay ku kala bedelan yihiin? jiimka dhibac ayay hoosta ku leeyahay, xa'dana dhibac ma lahaad leedahay, yacni waa u sharaxaysaa. kha'dana hal dhod ayay halkaas ku leedahay. marka cunugii wixii isku ekaaya wuu kala saari karaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo. daalka iyo daalka, ra'da iyo za'da way isku egyihiin sidaasoo kaleeto. marka kulli sidaas ayaad ku fahansiinaysaa. siinka mujeedadoo kalarka ayaan u kala bedelay, xarfaha isku eg hal kalaraan ka dhigay, sidaasaan ku waday. marka siin iyo shiin waxaad leedahay, siinka dhibac male, shiinkale 3 dhibcood ayuu leeyahay. sood iyo dood, soodka dhibac ma laha, doodkana hal dhibac ayuu leeyahay. da iyo da waxay ku kala bedelan yihiin, da'da dhibac ma laha, da'dana hal dood ayay leedahay. marka da markaa dhihis afka yani waxaa soo saaraysaa ilkahaaga foodeyda hadduu ilaah yiraahdo. cayn iyo qoyn way isku dhigaal egyihiin ayagana sidoo kaleeto. fa iyo qoof way isku dhigaal egyihiin. marka 20 xaraf ayaa alifka isku eg oo yacni laysku shabahayaa, yacni 3 ha ahaado ama 2 ha ahaado, yacni way isku egyihiin. marka kaafka iyo laamka iyo miimka iyo nuunka iyo wowga iyo ha'da iyo laam alifka iyo hamza iyo ya iyo alifka halkaas ku yaallo ma isku eko intaas, yacni 10 xaraf ma isku eko. marka 10 xaraf ma isku eko sidaas yacni u kala bedelan yihiin. 20 xarafna way isku egyihiin. marka walaalayaal insha allahu tacaala saasaa cunuga u fahansiinaysaa. alifka waa sidaa u ogtihiin 9 iyo 10. markaan yacni waddanka joogi jirnay 9 iyo 10 ayuu ahaa jiray, 10 iyo 9 oo alifku ahaa jiray, maadaama maxaa yeelay hamzada ka bixi jirna. marka hamze markaa ka saartid 9 iyo 20 ayuu noqonayaa. marka hamzada ku dartidna 30 ayuu noqonayaa. marka walaalayaal saas insha allahu tacaala. tibka kaleetana walaalayaal, alifka cunuga markaad baraysid waa inaad xilli aad baraysid aad u yeeshid oo markaas aad tiraadid hooyo akhri. like for example 5 maalmood oo kala siise, 5 maalmood ha isdhihin waqti badan oo kaa qaadanayo. waxaad leedahay hooyo macaan akhri, alifka akhri. hal mar uu isha marina wuu akhrinaa dabcan cunugii, yani xarfiyuu sheegaa wuu akhrinayaa. waxaad leedahay 2 jeer akhri. 2 jeer markuu akhriyo cunugii boring ma noqonin. labadii joorna wuxuu ka faa'iidayaa inuu cunugii oo la qabsaday indhihiisa. maalin walba marka 5taas beri aa 2 jeer ka akhri dhehaysaa. marka dambe cunugu waxaa arkaysaa inuu si sahlan oo muxuu ahay indhihiisi maaragta oo ula qabsadaan. marka walaalayaal saas oo kalena waa sameey kartiin insha allah hadduu ilaahay yiraahdo. dadaal insha allahu tacaala ku dadaala, way baranayaan si sahlan. sidoo kaleeto flash card aa la dhahaa geedahan. cunuga waxaa ku baraysaa alifka ayaa ku baraysaa, waa u kala bebedelaysaa. muxuu ahaay hooyo waxaad leedahay akhri, mid walba usoo qabanaysaa, midka kale usoo qabanaysaa, yani say iskugu xigaan waa ujeediin way badan yihiin ilaa iyo ya aad qoraysaa. marka insha allahu tacaala flash cardkaas canuga aad u anfacayaa hadduu ilaahay yiraahdo. walaalayaal alifkiyaan weli wadnaa. markaa flash cardski dhamaynay waxaad markaa cunugaaga markuu intaas yacni oo stepskaas aan soo raacnay markuu dhammeeyo, hadhowta insha allahu tacaala waxaad leedahay alifkii isku qasan maaragtaa wuu isku wada qasan yahay, ma u baahni inaan dul maro.
maadaama oo muxuu ahaay uu ready yahay marka ra'da iyo soodka iyo kha'da iyo qoynka iyo qaafka iyo da'da iyo da'da iyo daadka xarfahaas gaduudan waxaa waaye kuwa oo la weynaysiinaa dhawaaqooda marka walaalayaal kulligu isku dhex jiraa waa imtixaan insha allahu tacaala cunug waa ku imtixaamaysaa waa xarfo isku dhex qasan canuga marka maalin walba markaa dhehaysid cashirka dulmar oo yacni akhri aad dhehaysid alifka aad waxaad leedahay also kana akhri aad uu cunuga u anfacaa walaalayaal kutaabka maadaama kutaabka ilaahay xarfaha laysku keenay oo ilaahay ku dhammaystiray xarfahan oo ilaahay ku dhammaystiray marka cunuga hadduu xarfaha kala fahmo aad ay ku anfacaysaa marka walaalayaal insha allahu tacaala alifka horta aad ugu dadaala cunuga soo u fahmo kadib oo istabka kale insha allahu tacaala aadaya walaalayaal markuu cunugu insha allahu tacaala oo alifkii oo muxuu ahaa si fiican u fahmo kordhigii iyo hoos dhigii iyo godkii ayaad baraysaa marka fatxa waa kordhiga kasra waa hoos dhiga damma waa godka fatxa kasra damma aa dhehe fatxa kasra damma aa dhehe markaa haddaneeto waxaan aadaynaa fatxateynkii waxaad leedahay fatxatayn waa laba kordhigii kasratayn waa laba hoos dhigii dammatayn waa laba godkii fatxatayn kasratayn dammatayn aad leedahay fatxatayn kasratayn dammatayn aad leedahay fatxa kasra damma fatxatayn kasratayn dammatayn walaalayaal insha allahu tacaala xarfahaas haddaneeto markuu si fiican u fahmo ayaad insha allahu tacaala markaasa alif la kordhabay oo sidaan carabiga lagu wadaayo insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo aad cunugii markaas baraysaa marka insha allahu tacaala next cashir la socda ka faa'iidaysta hadduu ilaahay yiraahdo allah idii fududeeyo walaalayaal khayr iyo caafimaad ayaa idii dhaafay janalkana subscribe ii saara dhiirigeliya insha allahu tacaala aniga dadaalka xaggayga waaye adikana subscribe-ka xaggiina waa walaalayaal insha allahu tacaala aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina waa ku mahadsantihiin khayr iyo caafimaad ayaa idiiga tegay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu